السلام عليكم لبا صاحبيال idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijkeena taariikh iyo tiriig maanta waxaan ku soo qaadanaynaa William Shakespeare waxa uu kamid ahaa qoraayadii ugu caansanaa ee dunida soo maray waxa uu ku dhashay boqortooyada Ingiriiska 1564 William Shakespeare waxa uu ahaa gabiya qoraa halabuur jilaa iyo suugaanyahan intii u dhaxaysay 1580 ilaa 1529 waxa uu magaalada London ka bilaabay shaqadiisii jilaanimo halkaasi oo uu wacdar ku soo bandhigay ilaa uu ka noqday mid kamid ah hantiilayaasha ugu waaweyn ee London waxa uu waxbarashadiisii ka bilaabay dugsi maxalli ah kadib waxa uu bartay taariikhda Shakespeare isagoo 18 jir ah waxa uu guursaday Anne Hathaway oo 25 jir ahayd waxaana ay u dhashay 3 caruur ah oo laba kamid ah mataan ahaayeen Shakespeare waxa uu yaraantiisii bilaabay qorista sheekooyinka taariikheed iyo majaajilada qarnigii 16aad Shakespeare waxa uu ahaa gabiya laga dambeeyo gabayadiisa ayaa si weyn loola dhacay erayada iyo tixaaw isticmaalayo waxay si weyn u soo jiidatay dadka daneeya suugaanta sheekada Romeo iyo Juliet ayaa si weyn u shaabaxday waxaana loo turjumay in badan luqadaha caalamka oo Soomaaligu kamid yahay waa sheeko laga jecel yahay inta badan dunida intii u dhaxaysay 1529 ilaa 1594 waxa magaalada London ka dilaacay daacuun kaasi oo sababay geerida dad badan sidoo kale waxa la xayiray goobihii la isku iimin jiray sida masraxyada Shakespeare waxa waqtigaasi u dilaacay tirinta gabayada iyo suugaanta sanadkii 1594 waxa isku dayay inuu wax qoro balse waxa uu culays kala kulmay madbacadaha xilli uu rabay inuu soo saaro gabaygiisii Soniet oo ahaa gabaygii uu kaga saran maray dadkii gabyaaga ahaa ee xilligaasi joogay sanadihii dambe Shakespeare waxa uu la noolaa saaxiibadiis waxa la sheegaa inuu sanado ku noolaa magaalada Stratford ee dalka Ingiriiska markii dambe eheladiis ayaa shaaciyay inuu geeriyooday William Shakespeare mid kamid ah qoraayadii ugu caansan ee dunida soo maray muddo laga joogo nus qarni iyo dheeraad geeridiisii waxa lagu baraarugay ahmiyadda buugaagtiisa iyo gabayadiisii qormooyinka ugu muhiimsan ee uu ka tagay Shakespeare waxay isku jiraan kuwa taariikheed murugo iyo madadaalo hadalladii xikmadda ahaa ee uu Shakespeare ka tagay waxa kamid ahaa dadka wanaagsan waa inay la socdaan dad kale oo iyaguna wanaagsan dadka aad u dhageyso balse in yar la hadal baddu markay ay degan tahay dadkoo dhan waa badmaaxayaan haddii aanad lahayn hadafkaaga koowaad ka yeelo sidii aad u yeelan lahayd hadaf ninka laga guuleystay haddii uu dhoola cadeeyo kii guuleystay dhadhankii guusha ayaa ka luma dadka ugu adag ee noloshu waa inay kugu khasbaan in aad noqoto qof kale si dhab ah u noqo qof weyn sida uu fikirkaagu weyn yahay wax badan ayaad baran doontaa nolosha markaad aragto ragga damdamiska in aysan dabka kula tacaalin dab kale xilliyada qaar waa inaad iska indhatirtaa wax kasta oo laga sheegayo inaad ka jawaabtaana khasab maaha qofkii ka adkaada naftiisa ayaa ka adkaan kara dunida inteeda kale sababaha xoogani waxay dhaliyaan ficilo xoogan isdhullig xilliga aad guulaysato iska dhoola caday markaad guul daraysato haddii uu qof markuu khiyaamo uu khaldan yahay haddii uu mar labaad ku khiyaamo adiga ayaa khaldan intaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkeennii taariikh iyo tiriig nabada hada idilkiinba wassalaamu calaykum